السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا لها channel official والله subscribe صار channel كينا like comment share أنا هلمامين كم بلالك كورفو سأقول السعودية فيديو دبنا شو كرنتونا عوا وحاندين ودنا جعيل وهم حي جعيلك وح كبرو halkan fiirso su'aalooyinka in soo wadno aan idin jawaabayna waxaan idin soo bandhigayaa 10 su'aalood oo ku saabsan jacaylka 10kaas 8 kamid ah aniga ayaa idinka jawaabaya 2 kamid ahna iniga ayaa ii soo jawaabaysaan comment ayaad ku soo qoraysaan fadlan intaad ka jawaabi karto waad inaad isku daydaa inaad ka jawaabi karto su'aalooyinkaas inta wax ka taqaano jacaylka waxaan halkan ugu bilaabayaa su'aashii koowaad waa maxay jacayl jacayl waa dareen xambaarsan guur xalaal ah iyo wada noolaansho raxmo leh oo aan marna la saluugeyn su'aashii labaad waa maxay kalsooni sidaan filayo kalsooni waa labada garanayaa waa tan isku keenta laba qof waana tan kugu dhiirigelisa inaad ruux la samaysid xiriir jacayl naftaadana ku aamintid waa maxay xishoodka waa shay aad u wanaagsan badanaan qofka xishooda wuu ka dhex muuqdaa dadka kale haddii aan isku dayo in aan ka jawaabo kelmadda xishood waa sida tan xishood waa kan sababa in wiilka ama gabadhu sameeyaan jacayl dhab ah waayo dadka qofba qofku ka xishood badan yahay ayuu ka heli og yahay jacayl dhab ah iyo nolol wanaagsan shayga afaraad maxay dhalinyarada isjecel u yiraahdaan la'aantaada ma noolaan karo waxay u yiraahdaan si jacaylkoodii dhadhan iyo daneyn uu u sii yeesho qofka uu jecel yahayna aanu ka xiiso go'in midashanaad ma marka ka helitaanku yimaado ayuu jacaylku yimaadaa mise markuu jacaylku yimaado ayuu ka helitaankuna yimaadaa su'aashan sidaan filayo waa la wada garanayaa waayo markuu ka helitaanku yimaado ayuu jacaylkuna yimaadaa soomaaliduna waxay ku mahmahdaa waxay indho arkaan ayay ilka gooyaan mid lixaad waa maxay dhibaatooyinka lagala kulmo jacaylka dhibaatooyinka lagala kulmo jacaylku ma aha wax aynu halkan ku soo koobi karno waxaa tusaale wanaagsan inoogu filan dhaawaca soo gaadha lamaanayaasha isjecel marka ay ku midoobi waayaan nolosha su'aasha toddobaad maxaa sababa in qof kale uu u ilmeeyo haddii uu ka diido jacaylkiisa waxaa sababa dhaawac iyo dareen culus oo ka soo gaadha qalbiga marka uu ku guuldareysto jacaylka dhabta ah ee uu soo bandhigay su'aasha sideedaad adiga oo qof jecel haddii wiil ama gabadh ku yimaadaan kuna sheegaan in ay jacayl dhab ah u hayaan qofka aad jeceshahay kaana codsanaya in aad jacaylkooda tixgeliso maxaad samayn lahayd runtii tixgelintu waa wanaagsan tahay laakiin sidaan filayo ma jiro wax walba oo dhaca qof jacaylkiisa isdhaafin lahaa su'aasha sagaalaad oo aan doonayo in aad iniga ka soo jawaabtaan dadka ma ku waanin lahayd in ay jacayl dhab ah sameeyaan taasi iniga raba inaad ka soo jawaabtaan midda kale ula doonaya inaad iniga ka soo jawaabtaan oo nambarka 10aad ah ma jeclaan lahayd in daawo loo helo jacaylka adigu see maxaad daawo uga dhigi lahayd haddii lagu keeno qof jacayl haayo fadlan su'aashaas inaad iniga ka soo jawaabtaan ayaan doonayaa fadlan subscribe saar channel keena wala laha channel official ha hilmaamin inaad subscribe saartid sina share garee si asxaabtaana u daawadaan fiidiyodan soo gelin habeen walba waad mahadsantiin